fariin weyn ayaa ka timid dhinaca hogaamiyaha guud ee ururka Xamaas kadib markii dagaalkii xoogganaa lagu jabiyay Israa'iil. fariintan oo ku socota dhammaan dunida muslimka ayaa ah mid muhiim ah. haddaba intaan aynu soo gudbin fariinta oo faahfaahsan marka hore page-kan ku biiro like saar follow-de sina share garay warbixintan si ay u gaarto bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba. hogaamiyaha ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa markii ugu horeysay u mahad celiyay dhinacyadii taageeray intii uu socday dagaalkii lagu soo qaaday Falastiiniyiinta, asagoo mahad weyn u celiyay dunida islaamka dadaalkii xoogganaa ee ay gashay. waxa uu yiri asagoo si toos u hadlayay dadka waxa ugu qiimo badan qofka ku garab istaaga marka cadowga kugu gardaroodo. Xamaas iyo shacabka Falastiin waxay u mahad celinayaan weligoodna aysan ilaawi doonin mowqifkii adkaa ee madaxweynaha dalka Turkiga ee taageeradiisii qadiyadda Falastiin. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga iyo mowqifkii baarlamaanka Turkiga oo si aqlabiyad leh ugu dhawaaqay inay taageersan yihiin xuquuqda shacabka dalka Falastiin. warka ka soo baxay Ismaaciil Haniya ayaa sidoo kale lagu yiri waxaa xusid mudan shacabka Turkiga meel kastoo ay joogaan dhaqdhaqaaqyadii xoogganaa mudaharaadyadii maalinlaha ahaa ee ka dhacaya gobolada kala duwan ee dalka Turkiga siday u sameeyeen. amaal weyn ayaan u haynaa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdugan sida joogtada ee uu soo wici jiray intii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay Israa'iil iyo sidoo kale ururka Xamaas, asagoo talo iyo tusaalaba nagu garab taagnaa dagaalka aan kula jirno dowladda Israa'iil. isla markaasna waxaan u aqoonsanay haddaanu nahay shacabka Falastiiniyiinta Erdugan inuu yahay geesiga dagaalka. waa sidoo hadalka u dhigay hogaamiyaha guud ee ururka Xamaas kadib markuu ku guuleystay dagaalkii uu la galay Israa'iil. shacabka Falastiin waxaysan ilaawi doonin markii madaxda dunida ay ka aamustay qadiyadda Falastiin sidii geesinimada lahayd ee Erdugan oo golayaasha caalamka uga doodayay qadiyadda Falastiin iyo baaqiisi ahaa in gobolka la keeno ciidamo caalami ah oo ilaaliya magaalada Qudus iyo xuquuqda shacabka reer Falastiin. waxaan u mahad celinaynaa shacabka muslimiinta meel kastoo ay joogaan dunida iyo daafaheeda si kasta way u awoodeen way u taageereen, gaar ahaan baraha bulshada iyo mudaharaadyadii, taas oo muujinaysa midnimada iyo garab istaaga walaalaha reer Falastiin, ayuu yiri Ismaaciil Haniya, hogaamiyaha guud ee ururka hubeysan ee Xamaas. waxaan leenahay guusha qaybta ugu weyn ayaad ku leedihiin taageerada meel walba aad joogtaan. waxaana nooga dhigantihiin inaad ka qayb gasheen dagaalka ka dhanka Yahuudda, ayuu yiri hogaamiyaha Xamaas. shucuubta muslimiinta ay xorta quluubteen ayaa kasbateen, waxaadna jabiseen cabsigelinta cadowga. sidoo kale waxaad jabiseen cabsigelintii hogaamiyaasha dabadhilifyada u ahaa cadowga, kuwaas oo hadda dareemaya dulinimo iyo wajigabax, ayuu yiri hogaamiyaha ururka Xamaas Ismaaciil Haniya. asagoo si hadlaya waxa uu sheegay dhammaan dalalkii isgarab taagay qadiyadda reer Falastiin iyo dagaalkii ururka Xamaas ay kula jireen dowladda Yahuudda inay u mahad celinayaan, oo ay ku jiraan Turkiga, Soomaaliya, Tunuusiya, Maleeshiya, Masar iyo dowladaha kale oo ay ka mid tahay Kuwait, oo dhammaantood si wadajir ah u sheegay inaysan raalli ka noqon doonin dhibaatada lagu hayo Falastiiniyiinta. Ismaaciil Haniya, hogaamiyaha guud ee ururka Xamaas, ayaa asagoo qushuucsan yiri maalin kasta qalbigeena ayaa in la jira, adinkuna waxaad go'aansateen inaad isgarab taagtaan qadiyadda iyo dowladnimada dadka reer Falastiin iyo siday u heli lahaayeen xuquuqda ay leeyihiin. waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dadaaladooda ku aadan siday u ilaashan lahaayeen dhulkooda, xuquuqdooda ku aadan noolaanshaha iyo nabadgelyada inay helaan dadkiisu, iyo in la sii wado dadaal walba oo suurto gelinaya Falastiin oo dowlad ah. waxa uu hoosta ka xariiqay inaysan marraba ka tanaasuli doonin, aysan aqbali doonin in la waxyeeleeyo dhulka barakaysan, asagoo sheegay in Xamaas ay diyaar u tahay iska caabin ka seete weerar walba oo lagu soo qaado. hoostana waxa uu ka xariiqay inay diyaar u yihiin wada hadal iyo xal nabdeed oo lagu dhameeyo xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
ururka Xamaas ayaa guulo wax ku ool ka keenay dagaalkii uu la galay Israa'iil kadib markuu maalmo socday oo lagu jabiyay Israa'iiliyiinta laguna garaacay duqeymo kala duwan dhulkii nabdoona ee Israa'iil. iminka hogaamiyaha guud ee ururka Xamaas fariinta ka timid waxay muujinaysaa sida ay guusha u gaareen Falastiiniyiinta oo iminka doonaya inay sii xejistaan taageerada ay ka heleen dhinaca dalalka Islaamka.